Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada janalka maalmaha. Maanta waxaan idin soo gudbinayaa qiso aad u xiiso badan. Wiil ka soo jeeda qoys faqri ah, dadkuna ay ku barteen wanaag iyo alla ka cabsi. Wuxuu ahaa injineer dowladda u shaqeeya. Wuxuu kafaalo qaaday hooyadiis iyo walaashiis markii uu aabihii dhintay kadib. Maalin ayaa waxaa lagu kadiyay walaashiis oo 10 jir ahayd, taasoo soo gashay guriga iyadoo faraxsan. Kitaabka ay wadatay ayay ka soo bixisay lacag aad u fara badan, waxayna tiri macalimadda ayaa abaalmarin ahaan ii soo siisay lacagtan, maadaama aan xifdiyay kalabar Qur'aanka. Walaalkii lacagtii ayuu ka qaaday, wuxuuna yiri lacagtan waa lacag aad u fara badan, waxaana laga yaabaa macalimadan inay aragtay faqrigeena, sidaasi darteedna ay noogu caawisay lacagtan. Bal berri aniga ayaa ku raacaya sida aan u soo ogaado waxa jira. Wiilkii waxa uu tagay madrasada. Maamulka ayuuna ka soo ogaaday macalimadda inay goordhow jaamacadda ka soo qalin jabisay. Sidoo kale waxa ay ahayd mid wanaagga looga daydo, dadkana caawiso maadaama ay ka soo jeedo qoys lacag leh. Markii uu la kulmay macalimadda, waxa uu arkay in ay tahay mid aad u qurux badan. Kadib macalimadda ayaa u sheegtay in ay walaashiis u qalanto abaalmarinta, maadaama ay tahay gabar aad u caqli badan, fahamkeeduna uu fiican yahay. Walaalkii guriga ayuu ku soo laabtay, qalbigiisana macalimadda ayuu qabsaday. Waxa uuna Alle ka rajeeyay in uu ka dhigo ooridiisa. Hooyadiisa ayuu u diray dhanka iyo macalimadda si ay mowduuca ugu furto. Kadib macalimadda waxay ku tiri, "Aabahay ayaan idin ballaminayaa." Wiilkii iyo reerkiisa ayaa yimid gurigii macalimadda. Markii ay rabitaankooda u sheegteen macalimadda reerkeeda, ayagana waxa ay ogaadeen faqriga cidda, wayna u diideen. Sidoo kale macalimadda waxay ku adkaysatay in ay aqbalaan codsiga reerkan, oo ah in ay u guuriyaan wiilkan. Sidoo kale waalidkii waxay ka aqbaleen gabadha, wayna u guuriyeen. Guurkii waa uu dhacay, ooridiina si farxad leh ayay ugu dulqaadanaysay maciishadooda iska adag. Qoyskii maalin ayay booqdeen reerkii gabadha. Kadib ninkii waxaa lagu kadiyay sodoggiisii inuu ku yiri, "Alle ka cabso, naagtaada u keen digir iyo macmacaan kale, ka daa hilibkan iyo khudaartan aad ku wadid." Waa ay ka daashay. Ninkii hadalkan waa uu la yaabay. Kadib naagtiisii ayuu ka ogaaday mar walbo ay reerkeeda booqato inay soo ag dhigaan hilib iyo khudaar, ayadana ay tiraahdo, "Aniga ninkeyga waxba iima diido, hilib iyo khudaar sida uu iigu waday waan ka daalay. Waxaan rabi lahaa digir ama macmacaan kale." Xaqiiqdana sidaas ma aha. Guriga ninkeeda marka ay joogto hilib badanaa ma cunto. Waxaa la arkaa bishii hal mar inay hilib cunto. Ninkeeda waxa uu ogaaday in naagtiisa markii ay reerkeeda aado sharaftiisa ay kor u qaaddo, ayna ammaanto. Sidaasi darteed, jacaylka uu u qabo ooridiisa waa uu kordhay. Waxa uuna Alle ka baryay in uu waafajiyo sidii uu ooridiisa u farxad gelin lahaa. Muddo gaaban kadib, qoyskii Alle wuxuu ku arsaaqay wiil aad u qurux badan. Ninkiina waxa uu ku guuleystay mashruuc uu diyaariyay. Kadib qoyskii waxa uu noqday qoys hanti leh. Ayagoo farxaddaasi ku sugan ayaa maalin maalmaha ka mid ah, gabar saaxiibadeeda ah u sheegtay in ninkeeda mar walba ilaa iyo xitaa saacad uu la hadlo gabar magaceeda uu yahay Khadiijo. Ooridii aad ayay u tiiraanyootay. Maalin maalmaha ka mid ah, ninkeeda isagoo ag fadhiya ayay tiri, "Hal mar moobilkaada ii dhiib." Waxayna ka dhex aragtay magaca Khadiijo. Way naxday, waxayna weydiisay, "Yaa waaye Khadiijadan?" Ninkii waa uu dhoola cadeeyay. Waxa uu yiri, "Wac ayada weydii." Markii ay wacday, telefoonkeeda ayaa soo dhacay. Markii ay fiirisayna, ninkeeda ayaa soo wacaya. Kadib waxa ay tiri, "Weli ma fahmin arrintan. Magacaygana Khadiija ma ahan." Waxa uuna ugu jawaabay isagoo ka masaxaya ilinta ka socoto
sifaadkaaga, dhimrintaada, naxariistaada iyo jacaylkaaga. Sidoo kale inaad ii cabsanayso waa sifaadkii Ummulmu'miniin Khadiija bintu Khuwaylad oo kale, Allaha ka raali noqdee. Sidaasi ayaan kuugu magac daray magaca Khadiijo. Ooridii aad ayay u farxday wayna qiirootay. Waad ku mahadsan tahay daawashada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, gambaleelkana furo, asxaabtaadana la wadaag.